بسم الله الرحمن الرحيم وعاوة إيوه حافظي قرقي لجنكي أمضى لجن of the Legionist يبقى نور كالسوماليين عاوة هالكان وحي عشر شرف وصمين صح هل يجي قرن كأمضى الصوماليات وأرديهن عبد بلا عبدي ورجع وحن كوري هدايا رقم كمان مقنا هذا هالكاكو أركتان وall the awards iyo hiba nuura ma sha Allah waxa halka ka buuxa waa calankii ummadda Soomaaliyeed waxa u jeedaan ma sha Allah wax alle iyo wixii hiddo iyo dhaqan ahaa waa hiddo iyo dhaqankii ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa dhaqankeenii xalaasha ahaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاوة يقرقي هبا نور كالسوماليين لجنكي أمد الصوماليات وعشا شرف أصميسي هل يجي أمد الصوماليات يقوش أسوهوي دالكياني شرف تبضنا صوماليات وهل يجي عبدي بلا عبدي وأنشيدان عاوة قرقان قرق دبضان وحا هالكا فردية وهبا نورا وحا كوحوغا وهل يجي عبدي بلا عبدي وحا كوحوغا مدحدي مينيسوتا ninkaasi waa Siyaad Cali waxa ku xiga Faysal Dari waxa ku xiga gabadheeni professionalka ahayd Masbal Farax Haweeya Farax waxaan ku wareejin doonaa halyeeyada ummadda Soomaaliyeed anu kullee waxaan ula baxay nuurka Soomaaliyeed magacaas aan ula baxay nuurka Soomaaliyeed hiba nuurka Soomaaliyeed insha Allah وعاو هالكان هوستي غريسي dadkaan oo dhan soo dhaweentooda cashadooda una sameysay lejankii ummadda Soomaaliyeed halyeeyay ummadda Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi hiba ku soo dhawo ما شاء الله تبارك الله من ما قرنات بعد ما تسنتهي أنا عاوة الشرف ويني هاد وحن حسوستا بريغي يون تي في رسدنا بدنين هون هل تي في كليا لنا هاي مركو سو بديي وعلنكي حقوقتي تي في لايف بالغ دغه habeenka ilaa wuxuu shaqeynaya roorti oo isku wada habar wacanay sidaan caawinayo kala dad badan mar alla markuu soo galay وعلنكي حقوقتي iyo farxad qaarkay way hooyeen qaarkay way farxeen qaarkay oo suugeen ba mashxaradeen qalbigayga waligay ka gooymayso marka waxaan leeyahay siga dhulkiisa uu shaqo horseeda يريد الدشاي جيت كهبو عبد الله كله كستان قوان قاضي أنا إريقا كو قاضي لكن خف كهبون هنورن لها مجفت ما شاء الله وحن كرون له عيارو تركيني عافمات عشان عيارو مسكح دي فكر كعشان عيارو بوشة كفتر عريان عيارو علن كيني عيري يبهو سو عشاني حدقيه كو عام بحي عينك عبد الله كله ودعسيه على مصار ما شاء الله لا كرامة عمرو عدم وهنحي ودعوية ما شاء الله تبارك الله هذا هو الدنيا waxaa ina hor jooga oo na hor fadhiya halyeeyay ummadda Soomaaliyeed waa Cabdi Bile Cabdi mar labaad soo dhawow reemina soo too dhan waa ku soo dhaweynayaan waana ku jecelnahay waxaadna tahay taariikhdii dalkeena waxaa tahay taariikhdii ummadda Soomaaliyeed xataa generationka aan wali dhalan وانا كفرح سنة أنا جاهان من مهان إنه كبرتي ولقى اسمه هين وأركيسا هذا مرة حتى واحد سدها مرنا مركب سودو عاو عش شرفتان أي كوسة مسيه بنورة أنا جنا أنكسو قيب قلنا إلى هنا قرتين أنكسو قيب قلنا كسودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هورتا هذا أنتي بدنيد ولا يري واسكا وحبا مهارين
laakiin waxa weeye runtii caawa aad iyo aad bay farxadii u tahay xafladan ballaadhan quruxda badan qiimaha leh caawa aan halkan isugu nimi runtiina waxa weeye maalmuhu kala awran habeenadu kala awran waqtigu kala awran goobuhu kala awran markaa hibe maxamed waqtigeeda iyo gurigeeda iyo karaamadeeda iyo soo dhaweynteeda waa mid runtii farxad iyo wanaag iyo wax badan yani wax walba ka mudan casuumado ay cid kale samaysay ama meel kale lagu sameeyey weliba waxaa noo raacda taa diba aad iyo aad bay isu dhigto iyadoo iminka dhulkani qabow yahay oo baraf dhacayo waxay tiri ila weydin casuumaya waa ku casuumaya maqaaxi wanaagsan baana ku geynaya waanu ka wada hadallo waxa la isla gartay may aynu gurigeena iska joogno gurigaynu tegayna guri ka wanaagsan waad ujeedaa sida uu museum yahay iyo quruxda waad ujeedaa inagoo casho wanaagsan cunay haddana waxa weeye shaaha aan kala go-ayn aniguna shaaha waan ku yar hadlaa soo garan marka runtii waxa weeye waa casuumad aad iyo aad maaragtay dareenkeena iyo farxadeena aad iyo aad kor ugu qaaday daqiiqad kasta oo aynu hibe la joognaa waxay inoo tahay farxad gaara iyo dareen gaara taariikhdeeda waa laga soo wada sheekiyo dee ku noqon maayo soomaalina u sharaxi maayo hiba waxay tahay waa wax la wada og yahay inay welina halkii kaga jirto weli hormuud ka tahay uun ummadda soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed iyo masiirkeenu waxa uu yahay iyo kuwa soo socda iyo kuwii soo socdayba deewaanadaasuun in lala garab taagan yahay intaana ay qof dee wax hagaya wax saxaya wax wanaajinaysa tahay alxamdulilah maasha allah marka caawa inteena halka isugu time ee nasiibka u yeelatay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan idinla wada kulmay aad baan ugu faraxsanahay casuumadan qiimaha badan aad baan ugu faraxsanahay reer Minnesota oo dhami inay soo dhaweeyeen oo xafladuhu in badan bay iska socdeen maaragtay welina socdaan marka runtii dee waxa weeye dadkan oo dhami waa dadkii waxa weeye waa madaxdii la doortay waa dadkii waa aqoon-yahanadii iyo dhakhaatiirtii iyo dadkii wax ku oolka ahaa dee dadkaas aynu leenahay anigu waxaan sanadka nasiib u yeeshay kuna celceliyey meelo badan aan tegey sanadka intii shanta Soomaaliya la oran jirayba waan soo maray maasha Allah fursad aad iyo aad qaali waabay ahayd aad iyo aad ii farxad gelisay dadkeenu burbur badan iyo dhibaato badan buu soo maray wax badan baa inaga kala daadsan si aad iyo aad baynu habacsannahay oo aad moodaa inaynu danteennii garan weynay wax kale ma jiraan danteennii inaynu garan weynay laakiin runtii waxaan soo arkay inaanay marnaba rajadu ama sida aynu xaaladdu moodayno aanay ahayn ay ka wanaagsan tahay insha allahna mar walba aan rajaynayno inay kasii wanaagsanaan doonto waxaan soo dhaweynaynaa marka ugu horeyso madaxda Minnesota meel walba ayaga feersi ka ah waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen Siyaad Cali hadii ilaahay yiraahdo Siyaad salaam calaykum soo dhawow waa bahda midnimo qaran waxaan nahay wadaniin Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka u taagan sharaf bayna noo tacaaw inaan ka soo qayb galno barnaamijkan quruxda badan ee hay'adii Soomaaliyeed samaysay maxaad waxaan rabnaa inaad aragtidaada caawa cashadan quruxda badan ka dhiibatid bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad iskale waxaan u mahadnaqayaa lajabada Soomaaliyeed oo halyeeyada Soomaaliyeed Ibn Nuura oo runtii aan oran karo waa astaan qaran sharaf weyn bay tahay inaan kasoo qayb galo sharaftan ay ku maamuusayso halyeeyga Soomaaliyeed ee lejanka ah ee qaranka Soomaaliyeed u soo hooyay bilada ugu sharafta badan adduunka cabdi bila cabdi runtii wax aad u qiimo badan weeye inaan caawa isugu nimaadno gurigii Ibn Nuura waxay ii tahay runtii wax farxad weyn ah sharaf weyn bay ii tahay wax maaragtay sawir qurxoon oo ka bixinaya ummadeena Soomaaliyeed weeye laba qof oo runtii labaduba qaranka Soomaaliyeed soo adeegay
ummadda Soomaaliyeedna ay u hayso kalgacal badan marka waan ku faraxsanahay inaan caawa halkan aniguna kasoo qayb galo munaasabadan casho sharafta ah oo Hiba Nuura ku sharfaysay haliyey Cabdi Bile Cabdi oo dhawaan inooga soo guuray gobolka Virginia haddana gobolka Minnesota la degan marka waxaan mar labaad leeyahay Hiba Nuura aad iyo aad baad mahadsan tahay waa khiyaarta sharafta leh iyaguna halka kasoo qayb gala casho sharafta ما شاء الله أدبا ومهسنتهاي سودو بان لنا عبد بلا عبدي ومنسوطة إيو مقالد لبادة عاصمة الصومالي عمل نقطي ولكن فيصل أيام سودوين الناسنا فيصل سودو كندي بقربتي داد عاوة حفلة دانا مع شدان قروحة بدن أي صوت ديارسي هل يدو أمد الصومالية هبة نورة runtii sida uu walaalkeen Siyaad Cali uu sheegay waxay sharaf weyn noo ah inaan halkan caawa ku soo dhaweyno haliyey qaran oo Soomaali oo dhan magac soo jiiday magaca Soomaaliyana iyo calanka Soomaaliyeed oo calan aan aad u jecelnahay oo nagu weyn niyadeena oo awooyaasha iyo dadkeena ay u soo halgameen una soo dhinteen meel sare gaarsiiyay adduunka oo dhan ka dhex muujiyay sharafta iyo karaamada ay leedahay midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed waxaa kaloo noo sharafa markii uu dalkii burburay kadib inaan hantida ugu badan noo hadhay ay tahay xigmadii iyo fankii iyo suugaantii oo ahayd wax ay ku soo hormareen kuna soo kifaaxeen jiilashii naga horreeyay ee Soomaaliyeed iyo kuwa soo socdana aan filano inay ku soo kifaaxaan oo ay caawa nagala joogto oo aynu marti u nahay Hiba Nuura oo fanaaniintii Soomaaliyeed aadka loogu jeclaa ha noqoto xaggii hanuuninta midnimada iyo karaamada iyo sharafta iyo qarannimada Soomaaliyeed wax badanna soo hanuunisay dadka Soomaaliyeed ilaa haddana u heelan u taagan meel kastoo Soomaali uga baahatana mar walba hormuud u ah ama ha noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay barayso dhaqankii iyo wanaagii iyo hidihii quruxda badnaa ee Soomaali lahayd ama ha noqoto meelaha ay lagu soo dhaweynayo dadka mudan in la soo dhaweeyo ee Soomaalida karaamada leh marka Hiba waxay Soomaali kaga jirtaa kaalin muhiim ah waxay kaga jirtaa kaalintii xawataaka oo taala loo dhisay waxayna kamid tahay dadka Soomaaliyeed ee aanu rajeynayno in ayaduna ay sidoo kale meel muhiim ah ka yeelato oo sida aan Mareykanka ka baranay in meelaha ugu caansan in dadkii wadanka u soo halgamay baa loogu magac daraa ama ha noqoto Martin Luther King oo jidadka ugu waaweyn aan wadanka ku aragno waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa in wadankeena uu nabad noqdo farwaaqo iyo bashbash aan gaadno inaan jidadka ugu waaweyn xamar aan ku marno oo la jidkii Hiba Nuura jidkii Cabdi Cali Cabdi Bile Cabdi haliyadaas oo dhan soo halgamay inaanu jidadka u bixino waxa kaloo sharaf iyo amaanta in walaalkii Siyaad Cali uu hor fadhiyo oo isaguna sumad oo ah in bulshada Soomaaliyeed heerka ay ka gaadhay horumarka wadankan aynu joogno oo ay ka qayb galeen siyaasadda wadankan oo ay guulo ka soo hooyeen aynu ku dhex darsanay kaalintii aynu ku lahayn aanu ka qaadanay Siyaad wuxuu u yahay calaamad inaynan marti ku ahayn magaaladan aan joogno ee aynu inagu xil ka hayno oo inagu in naga weydiiyo oo aynaan ahayn qaxootigii leena oran jiray ku soo dhawaada gobolka innaga ayaa hadda ku soo dhaweyno Siyaad markuu meelaha ka hadlayo isaga yiraahdo hadda ku soo dhawaada gobolka Minnesota taasina sharaf bay noo tahay waxa kaloo maanta sharaf noo ah in gabdho badan oo jaamacada ka baxay oo kaalin muhiim ah xagga caafimaadka kaga jira ay dhinacayga fadhiyaan taasina waxay u tahay tusaale wanaagsan jiilka hadda soo koraya oo ku dayasho ay mudan karaan ay ku daydaan dadka wax bartay inay ku daydaan marka caawa waxaan leenahay Hibo sharaftaadna sharaftood ku mahadsantahay Ilaahay ku sharfo si wanaagsan baad noo sharaftay annagoo dhan si wanaagsan baad Cabdi Bile u sharaftay marka Ilaahay ku sharfo ما شاء الله waxaa ku xigta walaasheen masbal faarax soo dhawow aragtidaada caawa iyo cashadan quruxda badnayd ee loo sameeyay haliyeyga Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi waa mahadsantahay midnimo waxaa kaloo mahad leh Hibo oo caawa nagu sharaftay gurigeeda iyo cunto macaan iyo sheeko macaan iyo maaragtay wehel macaan ka mideeda kale waxaa yidhi nin kaa hadal badan dhaxalkii aabbaha wuu kula qaybsadaa nin iga hadal badan baa iga hormarsiisay isagaa dhameeyey hadalkii maxaa idhahdaa marka waxaan maxaad kale u celinaynaa mar labaad mar saddexaad mar afraad waa Cabdi Bile wuxuu ka tusaale yahay waxaa jirta xigmad oranaysa wadankan aan joogno maxaad wadankaaga ma aha inaad tidhaahdid muxuu anigu wadanka ii qaban karaa waa inaad isweydiisaa maxaad adiga wadanka u qaban karta
in English waxay dhahaan what can you do for your country instead of what my country can do for me mogt marka cabdi bile wuxuu muujiyey isagoonan dowlad waxba siin isagoonan dowlad waxba u ogolaanin ayuu wuxuu isku dayay inuu calanka Soomaaliyeed muujiyo isagoonan maaragtay aan ka filayn in wadankiisa ay wuxuu taro waxa kaliya uu xushmeynay waxay tahay magaca Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed qof walba Soomaali hadduu taa isku dayi lahaa Soomaalinimadu way horumar lahayd magaca wuu horumar lahaa marka dad badan baa jira maanta awood badan leh ilaah baa awood leh laakiin haddana awood badan leh oo meel ay ka soo muuqan karaan ka soo muuqda haddana aanan ku hanweyneyn ama aan wax u qaban Soomaalinimada oo aanan lahayn maanta booska aad fadhid in gaaban baad haynaysaa laakiin maxaad ka tagi kartaa maxaa taariikha صح ما شاء الله aniga Soomaalida waxaan ku guwaabinayaa qof walba meesha uu joogo maaha kaliya inaad adigu nafsadaada wax istartid waa inaad mar walba aad ku hanweynaataa maxaan wadankayga u qaban karaa magac ma ka tegi karaa beri ma laygu dayan karaa beri fahmaysaa hadda hibo kale way ka hartay heesihii oo waa qof xag Ilaahay u soo jeestay hadeer laakiin maysan ka harin gubaabadii Soomaalinimo kamaysan harin maxaa la dhahaayeen intaas awoodeeda intaada ku egtahay fahmaysaa marka intii ayada awoodeeda ku egtahayna way qabataa qof walba Soomaaliya waxaan ka sugaynaa ama ka filaynaa inuu intaa qabto uusan ka dhumin focuska uusan ka dhumin meelaha intuu ordo waxaana macno lahayn isku mashquuliyo maxaan bari ka tegi karaa صح ma fahmaysaa ما شاء الله farintaasaan gudbinayaa thank you so much adaa mudan waxaan u gudbaynaa walaasheen haweeya soo dhawow caawa aragtidaada laba lajan baa meeshaan fadhiya madaxda Minnesota iyo aqoon-yahanada fadhiya maxaad caawa ku darsan lahayd adoo aqoon-yahanadiina kamid ah ما شاء الله ما سنتهاي ولا شيء ما أنتي نشان وحان شرفت يقول صور دويسي إن هبو نورا إن أولو صور دوينا يه عبد بله مركا أنيجا إن هرتا لأن يرادا أو وده كان كسو كرتي بان كمد أهاي أو كسو برباري أو كسو برتي ما أنتنا إن هدايتنا وحس ويديني إن هدو دجال كان دع لهين إن هبو نورا ما نأكلها إن ما نأكلها عبد بله runtii aniga fanaan horta waan music waan jeclahay fanka waan jeclahay hiba nuura waan raadin lahaa laakiin ma u malayn lahayn inaan cabdi bile is arki lahayn laakiin unfortunately waxaana keenay dagaalkii iyo dadkii dhan isku keenay marka aniga maanta wallahi maybe asagaan soo raadin lahaa dhihi lahaa dadka qalbiga kugu haayo dhan laga yaaba and legends were two legends I feel honored and this is a huge opportunity for the youngsters to know where they came from and maxaa dhahaa dadkeeni meeshaan ka imaanay maantay waan ku faraxsanahay inaan hiba nuura gurigeeda aan joogo ma sha Allah tabaaraka hooyadeena way ku farxaysaa and maxaa dhahaa ilmaheegana way ku faraxsan yihiin marka maxaa dhahaa cabdi bile iyo hiba nuuro dadka waxa waaye taariikhdeeni haya ma sha Allah tabaaraka Allah ayaka hadday joogi lahayn maanta anaka ma jiri lahayn waxay wadankeena u qabteen dhulkeena u qabteen taariikhday suubiyeen weligeed ma la iloobayo ku dayashay mudan yihiin waa inaan ku dayano waxaan dhihi lahaa dadka yaryar oo wadamadan kusoo koray mase first generation wadamadan ku dhashay ogaada inaad dal leedihiin dhul leedihiin dad leedihiin Soomaali waxaan nahay dadka ugu qurux badan oo Afrika ku jiro ma sha Allah dad waxaan nahay oo hal hal dad oo hal dhaqan leh oo hal diin leh oo hal af leh marka maanta inaan qabiil iyo maxaa la dhahaa politics inuuna soo dhex gala ma aha dadkeeni maxaa u qaban karnaa dhulkeeni maanta sideen ku aadi karnaa meeshan wax waa ku baranay opportunity ilaahay wuuna siiyaan wax ku barano wadankeeni sideen ugu noqon lahayn maanta oon u dhisi lahayn oo u noqon lahayn hal dad oo wadankeeni aan ka soo saari lahayn wadamada oo advanced ah maxaa la dhahaa we have a beautiful country wadan waxaan leenahay oo maxaa la xeebta
ku agaarsan the Horn of Africa. So aniga waxaan jeclaan lahaa iyo ilmahayga iyo futureka generations of Somalis waxaan la jeclaan lahaa don't feel comfortable. waddankani ma aha at the end of the day. dhul baan leenahay. dadka qaarkood oo taariikhda oo Maraykanka ah dad waxaa jirta annaka noo eg madow maanta ma dhihi karaan waddankaasaan ka imaanay because ayaka waa la cadaadiyo waxaa lagu keenay doon oo dad ay u shaqeeyaan maanta annaka dhibaa meeshana keenay dhulkeeni weli wuu inoo jiraa sideen maanta dhulkeeni intaan ugu noqono wixii aan meeshaan ka faa'iidanay aan ugu celin lahayn oo dhulkeeni u dhisa lahayn maasha allah tabaaraka allah sujuumatid maasha allah Maraykan ku bartay laakiin af Soomaaligayga jaceylkayga iyo kalgaceelnimadeyda baan rabaa inaan u barto maasha allah haddana maanta erayaal badan baan bartay haddaan imaan lahayn meeshan ma baran lahayn marka ani I always look up to who my elders are maasha allah and the beauty and the wisdom and the courage and the bravery that they can instill in me. maasha allah tabaaraka maasha allah thank you so much maasha allah waxay ahayd casho aad u qurux badan oo caawa ay noo samaysay Hibanuura u samaysay soo dhaweyn special ah ama qiimo leh oo gooni ah oo loogu talagalay Cabdi Bila Cabdi allah caawa farxad ayay ii tahay inaan la kulmo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba la jamadii ummadda Soomaaliyeed dadkii Soomaali ugu qiimaha badnaa orodyahankeena caanka ah sharafta inoo soo hooyay ee awlaadeena aan wali dhalan xataa taariikhda u ah Hibanuura nuurka Soomaali weyn oo mar walba u taagan dalkeeda dadkeeda ciideeda iyo caankeeda farxad bay taacaw sharaftaan qiimaha badan oo u samaysay Cabdi Bila Cabdi inaan ka soo qayb galo aniga iyo walaalahayga qiimaha badan ee caawnala joogaba marka insha Allah walaalayaal inta aan barnaamij kale waa reer midnimo qaran walaashi midnimo jeejay inta aan hawada ku kulmi doono oo arka hadana duubi doono barnaamij kale oo qiimo badan ama lajanadii Soomaaliyeed ah ama taariikhda saan oo kale taa insha Allah inta ku kulmi doona hawada waxaan kaga tagaynaa anagoo isku duuban baahdi midnimo qaran iyo dhamaan maanta lajaniska nala fadhiyo iyo khatiirta iyo mataqaana aqoonyahanadena nala joogaba waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh